السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو محان كهالينا هورتا وان سلامي سومالي محمد ميلي جوغان با أمد سوماليات دما وان سلامي إن شاء الله تعالى. مركا محيهتيني عاو محان كهالينا عاو محان كهالينا حاسد نمد وها حاس شيء حاسد نمد لي يراهدو أما مخروق نمد هاد بقف بسدو يقانو أيان كهالينا مركا xaasidnimada run ahaantii waa shay xun weeyaan, waa shay laga fiican yahay qof walaalkaaya oo horumar gaadhay ama maxay tani yacnaatida isku filaaday inaad ka maqruuqdid oo aad maxay tani xumaant maxay tani aad ka xumaatid horumarkiisa iyo wanaagiisa waa wax laga fiican yahay. marka xaasidka macnihiisu muxuu yahay? marka xaasidka macnihiisu wuxuu yahay waa qof kaa soo horjeeda adiga, amba shakhsi ahaan kaaga soo horjeedo amba maxay hayteenay yacnaata mujtamac ahaan kaaga soo horjeedo. xaasidnimadu wax walba way gashaa. qof waxa weeyaan shakhsinimadaada ayuu kaa soo horjeestaa, qofna maxay hayteenay mujtamac ahaan ayuu kaaga soo horjeestaa. marka taas ayaa la dhahaa xaasidnimada. marka xaasidkow maxaad ku faraxdaa? maxaadse ku murugootaa? xaasidku ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado wuxuu ku murugoodaa maxay hayteenay oo ururkiisa iyo walbahaarkiisa ah maxay hayteenay farxadaada, adiga farxadaada wanaagaaga. yacnaati waxa weeyaan haddii aad qof magacle tahay, haddaad qof qoyskiisa yacnaati si fiican ula dhaqma ubadkiisa iyo maxay hayteenay ubadkiisa iyo caruurti iyo faamiligiisa, maxay hayteenay mujtamaca oo kale yacnaati qof maxay tiri karti badan oo shaqaysta, qof mutacalin ah, qof aan mutacalin ahayn oo maxay hayteenay dee iska normala oo iska shaqaysta oo faamiligiisa iyo waxaan ku yiri ka fikira maxay tiri ubadkiisa. waxaas oo dhan magacaaga oo hadduu maqlo uu yacnaati iyadoo qof dad ay kaa sheekeynayaan ay kuleeyihiin oo kale wallahi qofkaas qof wanaagsan weeye, wallahi gabadhaas gabadh wanaagsan weeye, wallahi wiilkaas wiil wanaagsan weeye, isaga waa malakamowdkii dili lahaa. malakamowd ayay u tahay. mana ogola maxay hayteenay in uu wanaagaaga ay dhagihiisu maqlaan, ma ogola. marka qofkaas oo kale allahuma najayna waa laga cawdi bilaystaa. qof waa qof isagu isla weyn, waa qof dadka wuxuu arkaa yacnaati duqsi ayuu arkaa, dadka wax jiro ma arko. wuxuu jecel yahay haddii la hadlayo inuu isagu hadlo, wuxuu jecel yahay haddii cid la ammaanayo in isaga la ammaano, wuxuu jecel yahay haddii la yidhaahdo qofkaasi waxbuu qabtaa ama waa qof kartila ama waa qofkan ama in isaga la dhaho ayuu jecel yahay. nin iyana ku doona ha ahaado. marka wanaaga oo dhan ayuu kasoo horjeedaa. maxay hayteenay haddii la yidhahdo maanta maasha allah faamiligaas faamilo qurux badan weeyaan, waa kaasoo maxay tiri wiilkay gabadha maasha allah way isku faraxsan yihiin oo waa reer faamil isku qurux badan oo iyagu dhaqankii qurbaha ka jira iyo maxay tiri nimankii boodboodayay marba gabadha furayay gabadha u geliyay waaba ka gedisan yihiin oo dee waaba dad maxay tiri maasha allah waa dad iska shaqaysta maxay tiri ama ninka shaqeeya manaagta shaqaysta ku doono maxay tiri ama gabadh single mother oo halkan iska joogta oo ubadkeeda yaran haysata maxay hayteenay iskana shaqaysata maxay hayteenay nafsadeeda iyo maxay hayteenay iyo faamiligeedana maxay hayteenay ka adag oo dee maxay hayteenay karti ilaahay uu siiyey. waxaas oo dhan haddii dhigihiisu maqlaan isaga waxay u tahay malakamowd. dhakhtar ayuu ka xigaa inuu dhakhtar galo, yaa ambalaas hallow qof baa halkan ku dhacay hala soo gaadho in ambalaaska la yidhahdo ayuu ka xigaa. muxuu marka ku farxaa? maxaa farxadiisa ah? maxaa noloshiisa ah? waxaa farxadiisa ah in adiga xumaan lagaa sheego, in lagu caayo, in lagu yidhahdo qofkani waa qof sida tana, in maxay hayteenay oo markii lagaa sheekaynayo farxad subxaan allah aad moodo in jannata fardowsa loogu bishaareeyey oo xumaan maxay tiri wanaagaaga ayuu maxay tiri xumaantaada ayuu ku raaxaysanayaa. muxuu ahaa horumar ma lihid oo yacnaati qof kartilo waxba qabsan karta ma tihid, wuu ku raaxaysanayaa. hadduu arko dadka wax kaa sheegaya wuu ku raaxaysanayaa. maxay hayteenay marka waxaas oo dhan
ayaa isaga waxay tahay farxaddiisa wanaagga ayaa waxay tahay xanuunkiisa xumaantana waxay tahay farxaddiisa sababta tahay waa maxay tiri maxaaha ii sheeg maqruuq waa maqruuq kelmadaas ma kale maqruuq waa maqruuq oo yacnaati dee wanaagaas iyo waxaan ku yidhi waxaa oo dhan ama maxay tiri soomaalinimo iyo dadweynenimaha maxay tiri dad isku xiran oo guluub ha ahaato ama shaqsi goonidiisa u nool ha ahaato hadduuba maqlo wax wanaag hadduu maqlo cudur bay u tahay isaga haddii laakiin uu maqlo iyadoo maxay tiri lagaa sheegayo muxuu ahaa xumaan lagaa sheegayo waa farxaddiisa laakiin hadduu arko iyadoo maxay tiri wanaag lagaa sheegayo waa cudurkiisa waa kiniinigii sunta uu ku dhiman lahaa hello ambulance oo dhakhtarka hore loo geyn lahaa marka waxaasoo kale ha la iska ilaaliyo xaasidnimadu ma fiicna waa waxa maanta maxay tiri Soomaaliya maxay tiri dhibaateeyay waxa weeyaan waa xaasidnimo iyo qabyaalad maxay haytini marka xaasidnimada la iska daayo qof kastaaba qofka walaalkiisa hadduu horumar gaadho ha u haneeyo oo hay maxay tiri ha u duceeyo hadduu maxay haytini uu mujtamaca uu magac ku leeyahay maxay haytini ha u duceeyo hadduu markaas maxay tiri de qof maaragtay horumar gaadhay u yahay ha u duceeyo laakiin inuu maqruuq ka noqdo ya oo uu maxay tiri ka naxo oo maxay tiri qofkaas wanaagiisba ay maxay tiri cudur u tahay xumaantiisuna ay maxay tiri farxad u tahay waxa waa laga fiican yahay maxay haytini marka xaasidnimada hala iska ilaaliyo iyo isla weynida hala iska ilaaliyo ma fiicna hadday noqoto xag diina ma fiicna hadday noqoto xag mujtamacna ma fiicna hadday noqoto xag muslimnimona ma fiicna maxay haytani oo dhinacna kuma fiicna xaasid baa layidhi maayo aflax hadduu aflaxana maayo ansax maxay haytani oo maaragtay dee wax wanaag ah kuma helayo aakhirkan isaga gundihiisa kusoo noqonaysaa marka xadiis waatuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof kastaaba waxa uu jecel yahay oo naftiisa uu la jecel yahay hala jeclaado walaalkii calayhi salaatu wasalaam marka xadiiska rasuulka ha lagu dhaqmo maxay tiri xaasidnimada ha la iska daayo maxay hayteenay qofowna qofka kale maqruuq ha ka noqonin haddaad qofka walaalkaaga wax wanaaga ku aragtid u hibe oo maxay hayteenay wax fiican baad samaysay ku dhe haddii aanadba maxay tiri intaa odhan karaynin ammaanka ugu dadaal oo waxaan ku yidhi afkaaga ka hayso marka insha allah caawa xaasidnimada ayaan ka sheekeynayay marka intaas ayaan ku daynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته